salaanka bacdi waxaan u malaynayaa murtida warku warqadu ku yaalay intii la sheegay bayna ahayd waxay dhabtu tahay waxaa la dheriga maxaa karka ka keenay kulaylka dherigu inuu karo oo uumi bixiyo karkaa keenaya kulaylkaa keenaya maanta xaaladda aan ku jiro shaki kama jiro waa marxalad madow ood moodo inay soomaaliya xaaladda ay ku socoto ilaan deganaanshaha siyaasadda soomaaliya waxaa beys u ahayd afartii sanaba isbeddel inuu dhaco nin kastoo afartii sano marayana isagoo damca ku jiro yuu tegayay sida uu madaxweyne shariif ka hadlayay ma ayna dhacaynin oo mayna suurtagal ahayn madaxweyne kasta oo doorasho gelayay aada wuxuu u jeclaa in barnaamijka doorashadu uu ku soo noqdo oo kambeynkiisa uu galo sidan uu yeelay laakiin maxay ahayd qadartuna way taallay wuxuuna isku dayay si hufnaana inuu calafkiisa ama ku qaado ama ku waayo tusaale waxaa idinku filan markaan doorashooyinkiisi la soo maray ka hadlay waxaa shireer joogta ah lalahaa tii ugu dambeysay 2016 iyadoo 2012 doorashadu ay ku fududeyd in oday dhaqan uu wax soo xulayay 2016 iyadoo cusbeyd oo doorasho dadban la aaday aqal sare la dhisay kan la sameeyay haddana waxay ahayd maalin walba in la isu yimaado shir la galo khalad yar oo soo baxay ama wax yar oo la isku qabtay baa waqti lagu bixinay maanta waxaan taaganahay inaan la shirin inaan cid isweydiinin yaa talada waddanka lu kula yaa wax laga weydiinaya kullu hada meel baa lagu tuuray haddii ay ina anfacayso lahaansho iyo dictatorshipnimo iyo anaa maamulayo anaa sidan odhanay de soomaaliya dagaalskaga kamuna dhaca waxa caqabada iyo marxaladan iyo dhibaatada na gaadhsiiyey waa waxa na soo maray wey hadda waxa loo yaalana waxay tahay qaylada naga keenay waddankaani wada ogol iyo talo la wada tashado iyo wax la isku ogyahay oo meel lagu gaari karo anaa wax samaysanayana nina meel kuma gaadhin soomaaliya inay isu timaado oy miiska wada fadhiisato oo wixii danteeda ay ka tashataan casara inaan wax dumino iyo inaan wax gaara dhisno iyo inaan wax la carara midnan umaanaan samayno waxaan u samaynay in la isu yimaado la wada tashado gacmaha la isqabsado wixii lagu dhaqmi jiray lagu dhaqmo waddanku uu sidaa ku badbaado taasay ahayd muhiimaddaan u samayno dareenada qaar hadday jirto qolo gooni ee cidda wax shidanaysa waa kuwa hadda dikaale guddi farsamo caawa 11 habeeniya intaan magaalada muqdisho joogo ma joogtaa ma timid nimanka mas-uuliyadda hadda sheeganaya guddiyaha shirayana xataa su-aal la isma weydiin inaan joogiyo inaan anaa isu jooga anaa isu imid waxaa laga hadlaya waxaa le wasiiraha loo yeelo shirha galeel waxay isweydiiyeen waa nasiib daro aan ka wada fakaro waddankaani waxaa la yidhi qofku waxa uu ku bukoodo laguma daweeyo qof hadduu caano dhanaan ku bukoodo suusaca caanaha suusaca wax walba hadday u yihiin lagama yaabo inuu dawo u noqoto dadkaani qoorqabasho dawo uma aha waxaa dawo u ah wadatashi is-ogol is-horfadhiisi xal la gaadho wixii dan soomaaliyeed loo arka loo sameeyo waxaan rabaa beesha caalamkana inaan u gudbiyo oo aan u sheego waddankani xaalad waddan dhisid buu ku jiraa iyo bilow dowladnimo ma joogo anaa sidan idhi anaa sidan odhan karaya waa inay laga fekero oo cidda soomaali caawinaysa ay ka fekerto soomaaliya maanta waxay u baahan tahay waa kugusan iyo dadkoo la isku wade anaa idhi soomaaliya inayna ka telinayn iyaguna ay noqoto qeybta ay ka leeyihiin inay ka qaataan isu keenista dadkaas iyo tala wadaaggood iyo waxay leeyihiin haddaan iyaga iska badaynana innaga soomaalida ah aan ka fekero ka ciidankaa inta shariifku yidhi baa madaxweyne shariif baa ku filan inuu garto ciidankani shalay wixii lagu aasaasay iyo maanta wuxuu ku taagan yahay berri wuxuu kusii jiri doona ka shaqaalaha iyo ka qof waliba saasuu macnihiisu noqonaya waxay la tahay waddankan aan u soo wada jeesano sidaan maanta ku jiraay baraarug ba inoo tahay wake-up call haddaan maanta ka jawaab weyno garan weyno meeshaan u soconnana berri waxba kama qaban karayo caanadaa toddobada waa la qabtaa inta naga maqanna waan ugu yeedhaynaa waan isu imanaynaa soomaali waxay raalli ku tahay oo kugusan ay isugu dhiibto dhaqankeedu siduu ahaa oo sidii hadda muddadii lasoo dhaafay la isugu dhiibayeen yaa rabnaa hawshan inay ku dhammaato aad baad u mahadsantihiin
inta maqan iyo inta joogta iyo inta kusoo biiraysa kulli waa gogol soomaaliyeed oo fidsan waadna mahadsantii salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu